Tani waa akadeemiyadda ugu horumarsan kubadda cagta, ama haddii aan si kale u dhahno waa hoyga kubadda casriga, taasi oo soo saarta sanad waliba xiddigo leh mawhibad wax ka beddeli doonta ama qabsan doona caalamka ciyaaraha. Muuqaalkeena maanta waxaan ku dul istaagi doonaa akadeemiyadda La Masia, inaga oo eegi doona sooyaalkeeda siday u soo saarta dhalinyarada nolosha ka dhex jirta akadeemiyadda xilliga la go'aansaday in loo beddelo akadeemiyad soo saarta dhalinyarada iyo xiddigaha ugu caansan ee kasoo baxay La Masia. Magacaygu waa Bilaal Daahir Waane, halkani waa Bilaal Media. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Inta aanan guda galin muuqaalkeena maanta, ha ilaawin inaad like inoo saartiin lana wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena aan jecelnahay ee nagu xiran. Mahadsanid. Sanadkii 1702 ayaa la dhisay ama la hirgeliyay xarunta La Masia de Camplanes, markaasi hore oo ahayd dhul beereed ku yaala gobolka Catalonia ee cariga dalka Spain. Sanadka marka uu ahaa 1979 ayay ahayd markii ugu horeysay ee laga dhigo kulliyad soo saarta dhalinyarada kubadda cagta ee kasoo jeeda gobolka Catalaanka, maadaama loolan adag kala dhexeeyay boqortooyada dalka Spain. La Masia dadaal iyo juhdi dheeraad ah ay bixiyeen maamulka kooxda Barcelona iyo maamulka gobolka Catalaanka ayaa waxa ay heshay sumcad qadarin dheeri ah markii ay saaxadda kasoo wada muuqdeen xiddigaha Cesc Fabregas, Lionel Andres Messi, Gerard Piqué iyo Pedro. Laga soo bilaabo 1979 ilaa 2009, 440 dhalinyaro ah ayaa ka tagay guryahooda iyo qoysaskooda si ay u joogaan ama ay u tagaan akadeemiyadda ciyaaraha ee La Masia. Qiyaastii kala barkood waxa ay ka yimaadeen Catalonia, intooda kalena waxa ay ka yimaadeen gobollada kale ee boqortooyada dalka Spain iyo meelo kale oo ka baxsan dalka Spain oo ay ku jiraan 15 ka mid ah Cameroon, 7 Brazil, 5 Senegal iyo 3 Argentina. 440kaasi 40 ka mid ah waxay u ciyaareen kooxda koowaad ee Barcelona. Ciyaaryahanka soo mara La Masia wuxuu leeyahay wax ka duwan kuwa kale. Waa waxyaabo marnaba aan kari karin ciyaartoyda kale ee caalamka. Waa waxyaabo kaliya ee ka imaan kara kulliyadda dhalinyarada ciyaaraha ee La Masia. Hadalkan waxaa yidhi tababarihii hore ee kooxda Barcelona ee Pep Guardiola. Ciyaartoyda soo mara La Masia waxaa lagu hayaa akadeemiyadda sanado badan oo ay qaadanayaan cashiro la xiriira kubadda cagta, iyaga oo maraya heerar kala duwan ee kulliyadda ilaa ugu dambeyn ay u soo dalacaan kooxda koowaad, taasi oo ku haminayaan xiddig waliba oo ka tirsan La Masia. Xiddigihii ugu caansanaa ee kasoo baxay kulliyadda ciyaaraha ee La Masia waxaa ka mid ah Xavi Hernandez, kabtankii hore kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Spain, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Carlos Puyol, kabtankii hore kooxda ee Barcelona, Gerard Piqué, Victor Valdés, Jordi Alba, xiddiga lagu magacaabo Amor Alaques Putellas oo u ciyaarto dumarka dalka Spain, Sergio Projan iyo xiddiga lagu magacaabo Pep Guardiola ahna ahaa tababarihii hore kooxda Barcelona, xiddiga lagu magacaabo Tente Sanchez, Sergio Roberto, Pedro Alberto Ferrer, Antonio Olmo, xiddiga lagu magacaabo Pep Mati iyo xiddigo badan oo ka mid ahaa Ansu Fati iyo Gavi. Kuwaani oo magac iyo miisaanba ku yeeshay kubadda cagta caalamka. Sanadkii 2009, xiddiga reer Argentina Lionel Messi ayaa noqday laacibkii ugu horreeyay ee kasoo baxay kulliyadda ciyaaraha ee La Masia, kuna guuleystay abaalmarinta iyo xiddiga ugu wanaagsan caalamka ee Ballon d'Or. Xulka dalka Spain ayaa ku guuleystay koobkii adduunka 2010, kaasi oo ka qayb ahaayeen 7 ka mid ah safka koowaad ee xulka qaranka Spain, xiddiga kasoo dalacay kulliyadda ciyaaraha ee La Masia. 25 November 2012, markii ugu horeysay kooxda Barcelona ayaa ciyaarsiisay 10 ciyaaryahan ee kasoo baxday kulliyadda La Masia kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. Kadib markii dhaawac uu soo gaaray xiddiga reer Brazil ee Daniel Alves, kaasi oo lagu soo bedelay xiddiga lagu magacaabo Martin Mayota oo kasoo baxay kulliyadda da'yarta ee La Masia. Ciyaartaas ayaa isku bedeshay inay garoonka ku wada jiraan xiddigo ku xardhan jiilka La Masia sida Victor Valdés, Jordi Alba, Carlos Puyol, Gerard Piqué, Mayota, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Pedro iyo Lionel Andres Messi, kuwaas oo dhammaantood kasoo wada baxay kulliyadda ciyaaraha ee La Masia. Akadeemiyadda La Masia ayaa sii horumarisay soo saarista xiddiga mawhibad leh
laga soo bilaabo sanadkii 2020kii waxa ay soo saartay xidiga da'yar sida Gavi, Pedri, Baldi, Ronaldo Araujo, Pau Cubarsí, Fort, Fati, Lopez iyo xidiga kale oo ku jira daaha daahsoon ee La Masia, kuwaas oo kooxda Barcelona u noqday dhaxal badbaadiya mustaqbalkeeda maadaama ay la dhibaatoonayaan sharciga dhaqaale wanaagga. Guud ahaan, kooxaha ka dhisan caalamka ayaa leh xarun lagu soo saaray ciyaartoyda, balse La Masia iyo akademiyadda kooxda Ajax ayaa ah kuwa ugu horumarsan caalamka iyaga oo soo saara xidigo badan oo ku saleysan aqoon, tayo iyo geesinimo ku ciyaaraan rooga cagaaran ee kubadda cagta.